بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي ماشي كوابونا إن بدن مدحدي مسؤولينتي إيجوري أييري دنبان وحيرادين ووحنا دهان وانكم هتسيهن عربا مانتا يعاوى تاريخ ذي صومالي كما يرى والإن بدن عاونا ولا هذا ولقد ولا جسوا هذي حراس جار إن نحسه دولة نمدو مرك أي حماته وحا أي دشاه ووحا عاوة دان لغا هدلي تبشوين عن دمان صدن iyo dhowr sano marayo oo qaarkood ka sii horeeyeen oo laga yaabo 60 iyo dhowrka sano xortanahay inay marayaan iyo wax la mid ah ayaa ka dhasha laakiin haddana xigmadda saxda ah waxay tahay shalay lama noolaa karo waxaa jiro dad aan u bixiyay dadkii yawmal qiyaamaha afka qalaad ama ingiriis lagu yiraahdo doomsday people dadka balaayada inta balaaya ka soo duntay intana balaaya ka soo butaacday wala xuma soo socda waa la jabay waa la hoogay waa laga dhacay kuwa yiraaho waa dadka aan u bixin dadka yawmal qiyaamaha wax kala ma hayaan karaamo iyo sharaf ku marihid waxa saxda ama waxa san inaad ka gabato oo waa la qaylinaya waa la buuqaya xagga laga dhacaya hebela qaylinayo reer hebela qaylinayo inaad tiraadid oo ka gabato waxa saxda ah sharaf iyo karaamo ku yeelamaysa sharaf iyo karaamo adduunyo iyo wanaag aakhira intaba waxay ku jiraan waxa saxda ah inaad ku adkaysato waana lagu qayliyaa waana lagu buuqaa waxba taariikhda sheegi doonto Soomaaliya qofka waxa saxa u sameeyay meeshii uu joogo talada ka lahaa maalinta ka soo baxay taladeedii oo yeelay iyo kii ka gabaday ee fulay ah ee cararay ee madaxa hoos u maxaa gabaday taariikhda kala xusi doonto maalinteeda waa maxay marka maanta sida hadda halkan hogaamiye firdhiyo uga dhawaajiyay iyo dad kale oo madaxa degmooyin badan oo 17 sano waqti ah iskuulna aan ka furreyn imtixaanna aan lagu qaadi jirin maanta shahaadadii dugsiga sare imtixaankeedii shahaadadii dugsiga dhex in loo fadhiyo kumanaan kun oo arday ah maanta in ceel dheer imtixaankii dugsiga sare laga qaadayo oo aadan yabaa laga qaadayo oo baxda laga qaadayo oo maxaan ku yiraahdaa yani you name it degmooyinkii shalay maxaa argagixisada iyo khawaarijtu ay hayeen oo dugsi iska dhaafay dugsi quraanka xataa ay ka xireen in imtixaankii dugsiga sare maanta laga qaadayo waxaan rabaa inaan markaa inta uga soo gabagabo dadka reer waqooyiga Soomaaliya ku nool gobolada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland waxaan leeyahay war dad Soomaaliyeed oo walaalihiina oo Soomaalinimo إذا كانت حيث Soomaali isla tiin oo idin nacab ma jiro dad Soomaaliyeed oo inta meel ku tashaday ku shooray dadka waqooyiga degan ama qaybo kamida aan layno aan la dirirno aan xumayno aan yeerina ma jiro dawladan la haynay dawladaasi dadka oo dhamay dishay dilku dadku waa u kala badnaa karaa burburkii halaaga ee dadka gaarsiisay waa u kala badnaa karaa inuu idin badnaayna waa qirsanna ma diidanin laakiin inaad ka daawowdaan rabnaa inaan anaguna wixii aan idinku daaway karno inaan idinku daaweynaan rabnaa oo aan ahayn aan kala tagno daawo kuma dhalanayso walaalayaal idinkana idinkoon tabar yaraa meel idinku muxuu ahay cunaya annagana annagoo tabar yaraa meel kale nolagu cunaya haddaan yarnahay markaan isku tagnaan yarnahay markaan isu tagno oo cududeenna iyo tiradeenna iyo waxaan leenahay isu geysano yaan yarnahay wali aan sii kala tagno xikmad ku jirtaahay ma jirto waxaan rabaa kuwa yawmul qiyaamaha aan ka sheegay halkan waqooyina waa joogaan ayagana sidoo kale muxuu ahay balaayo iyo wixii dhacay iyo burburkii shalay
iyo xumaanta nala damacsan yahay iyo kan iyo waxa xagga jooga waa dulli iyo niman waaweyn mas'uuliyaho waa reer hebel waa adoomo waxaas waa kuwa aan sheegayo maxaan ku raad duumisdayga ka hadlo waay laakiin hal midaan soo qaadaya oo aan dhibtay oo aan ila qumanayn saxna aan ahayn saxna ma aha waa kuwa yiri Somaliland ama waqooyi Soomaaliya dhulka ku yaal ee badda ku taalo annagu inaan bixino ama muxuu ahay maamulka Somaliland oo bixiyo ayuu diidan yahay Xasan Sheekho isaga raba inuu bixiyo waa been low nin dhintay iyo nin dheerow marqaati u qabsadaa la yiri shalay Berbera markii la bixinayay ma annaga bixinay aan bixino la'aantiin lama bixi karo miyaan dhahnay inta la qaybiyay soo xabashida maanta na haysato oo dhulka inay nus naga boobta rabtaa soo qayb lagama siin Soomaali annagoo amiyana laga xusayo waxna laga siiyay miyaan dacwoonayoon eeteenayoon qaylinayoon waxaynay Berbero waa dekad Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeeda iska leh nin kasta oo ajnabi ah boqolkiiba 50 qolaa qaadatay Soomaali aan ahayn boqolkiiba 19 kalena qolaa qaadatay haddii boqolkiiba inta badan xataa reer waqooyigu ay qaadan lahaayeen waa ammaanta milayn maanta magaasaan muxuu ahay waliba intan xafladeynaan waxay lahayn in boqolkiiba 50 iyo boqolkiiba 19 boqolkiiba 69 in ajnabi qaato oo boqolkiiba 30 Soomaali ay qaadato yaan ku aamusnay لأن أجنبي قاس الدكتة بربرة انت ررته لجور دبكيس بريجيسن مايو بربرة دكتة سومالية بي أهاني سا ما أنت شلي نوي أي ما أنت نواتاي بري نوي أهان دونتا سيداس درادت وحانو أرجني باسمها يهرو مركا يبلارنتا يحوجيسك الدكتة داس يعود يحوجيسن يسوق ولا سومالي وصو كرديان وأركينيه maslaxadda yartaa ee profit-ka iyo faa'iidada la kala qaadanayo ee ajnabigu ay badsadeen waxba u maanan arkeen laakiin wixii asalka ah inay noo harayaan ay noo yaalaan Soomaali haddaan nahay yaan u arkeen intaas waxa dheer dawladda Itoobiya dekadaan rabnaa dhaaf iska ilow sheekada asal dhigaan rabnaa iyo maxaan ku raadaay ciidan saldhig badan rabnaa iyo sheekada iska ilow shalana ma dhicin maantana ma dhacayso birina ma dhici doonto xataa annaga dhan haddaan tagno kuwa dabo naga imaan doona xataa kama suurawdo ma dhacayso waxaan rabnaa marka in la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee waqooyi Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa mushkiladeena badal la saxiixaya iyo ganacsiga la galaya ma aha mushkiladeena waxa waaye dhulka waana laga qaadanaya waana laga tagayaa mana ogolin waxaan diidanahay waa in dhul naga tagaay mitir ha ahaado dood shalana badda tagaysa markiina la yiri waa diidnay maantana dhulka qayb tagay hadii la waa diideynaa ma ogolaanayno waxaan diidanahay waa taas reer waqooyi ama muusabixi waxa saxiixo maya ana saxiixayo Xasan Sheekh oo Muqdisho jooga ma ahan yaan leedinku khaldin walaalayaal dhulka nagama tegi karo war dhul ma lama bixiyo war dhul nama anfaco maanta waliba aan xoogaa tabar darannahay nama anfaco kama hadli karna dhul bari anagoo xoog la hataan ka hadlayna xataa Allah na gaarsiyo maanta dhul kama hadli karno dhulka maanta naga tagaane dib noogu soo noqon maayo waa taariikh wax hore u dhacay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 64 waxaan rajaynaynaa 60kii iyo spiritkii 60kii jiray iyo wanaagii iyo midnimadii inay noo soo noqoto wax kasta qiimi kasta oo ay leedahay midnimadaas ku soo noqon karto waa naga diyaar dhiig haddii loo daadinayo waa naga diyaar waan haddii laga galayo waa ka soo galnay welina diyaaran u nahay darajo iyo maqaam haddii loo hurayo diyaaran u nahay inaan u hurno kuwa aan fadhino iyo kuraasta aan ku fadhino dhan inaan u kacno midnimada daraadeed diyaaran u nahay waxa ka soo haran laakiin yaana lagu maaweelin waqtina looga qaadin mar kale iyo mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto ciid wanaagsan hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed sanadkan iyo sanado kale badan nabad iyo wanaag iyo guul iyo geesinimo aan ku gaarno aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh